dowladda Itoobiya in qaran Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed ay jirto ma rabaan dowladda xiliga dowladdu ma jirto dalka waa la haystaa Tigreega ay soo duulay si degdeg dalka looga saaro waa marka ku xigtay oo ama ajnabi ah hadday Itoobiyaan yihiin iyo Mareykan yihiin iyo hadday cid kale yihiin iyo kuwii Soomaalida ahaa ee dabadhilifka u ahaa يا ساعي يا ساعي يا ساعي دولة ما يسنتي هدي ما دحوي دورة كاني لو ساعي mudan heshiiskii Djibouti waxa uu keenay kala jab ku yimaaday isbahaysiga sideed u aragtay adigu inuu isbahaysigu kala jabay qaar joogo Asmara iyo qaar ku sugan Djibouti anu waxaan arkaa marka u horeysay arinta Soomaaliya dadka wada waxa weeye wax garadka ummadda Soomaaliyeed waa culumadeeda oo aan kala qaad lahayn waa aqoon-yahankeeda waa siyaasigeeda waa haweenkeeda waa badankeeda leeyahay dhalinyaradeeda waa ganacsatadeeda dadka wax garadkiisa ayaa la rabaa inay inta isu tagaan Soomaaliya wixii dan u ah ay ka taliyaan sidii aan iri hadda arintu ma aha arin koox khusaysa mid tan muxuu ahaay ragga kana anigu hadda wax kala tagay oo weyn ma arko hadii waxyaalo la isku afgaran waayana ragga wax isku afgaran waayay waa ku heshiin karaan aragtida guud iyo waxa maslaxada ummadda Soomaaliyeed tahay dabadeedna waa ka qayb gali karaan meeshii kale wax lagu qabanayo waxaasan ku nuuxnuuxsanaya talada Soomaaliyeed waxay ka go'daa intaasaan sheegay wax garadkeeda adiga shakhsi ahaan ma ku fikiraya maadaama aad xiriir fiican la lahayd raggii maxkamada ku wada jiray haddii uu ahaa Sheekh Shariif iyo Sheekh Xasan Daara Wasba inaad u kala dib qaado oo markaasi fikirkooda ay soo dhaweyso raggaas aad sheegtay waxaan filayaa rag iyagu meel ka soo wada jeeday weeye mana arko wax weyn oo hadda ay ku kala tageen waxaan filayaa inay aniga ii baahnayn dhinacyo kale oo ayaga ah ayaa wada hawshaas ayaan isleeyahay iyagaana isu tagi doona meelna inay wax wada dhigtaan waa laga maarmaan haddii wixii qalad ah inay saxdaan wixii saxana inay wada qaataan mudane hadda waxaa ku sugan tahay dawlad Carabeed oo ka mid ah dawladaha caalamka Carabta ugu waaweyn dawladaha Carabta maxaad ka rajaynay haddii aan ku xasuusiyo dawladda Masar madaxweynaheeda waa kii yiri waxaan ogolnahay oo ama aan ogolaansho siinay Itoobiya in ay Soomaaliya gasho marka maxaad ka filay oo maxaad ka rajaynay in ishaag dawladaha Carabta ay Soomaaliya ku garab istaagaan mar haddii siyaasadoodu ayba sidaas ahayd anigu ma maqal meel uu madaxweynaha Masar ku yiri Itoobiya inay Soomaaliya gasho ayaan goyn hadduu sidaa dhihi lahaana ma imaadeen badalka sidaa daraadeed waxaan u imid waxa jira inaan ka wada hadalno bariyo ugu horeysana madaxdooda arrimaha dibadda madaxdooda nabad sugidda madaxweynaha dawladooda intaba waa laga wada hadlayaa waxaan ka wada hadlaynaana waxa weeye arinta Soomaaliya sida ay tahay iyo dowrka laga rabo inay Masar qaadato mar hadday iyadu tahay calansidaha ama hogaamiyaha caalamka Carabeed iyo dawladdii ugu weynayd aan Afrika oo dhanba dawladda ugu dadka badan oo ugu weyn hadday mar tahay hadday mar xiriir wanaagsan oo dhow la leedahay dawladda dhibaatada iyadoo dhan oo ay ka imaanayso Mareykanka waxaas oo dhan iyadoo la tixgelinayo ayaan intii aan joogana madaxdii aan isaragnay ka siinay qoraal waxa dhacaya iyo sida wax lagu xallin karo ragga aan isarki doonana haddii la yiraahdo taa ayaan wadnaa waxaan isleenahay marka Masar dowr ayaa uga furan in waa marka u horeysay ciidamada Tigreega ay soo duulay si degdeg ah dalka looga saaro waa marka ku xigtay inay ka qayb qaadato sidii nabadgelyada Soomaaliya loo aslaaxin lahaa iyadoo la kaashanaysa caalamka Carabta caalamka Islaamka Afrika iyo Yurub iyo Mareykanka intaba mudan Cabdiqaasim ma isleedahay xilligii aad madaxtinimada Soomaaliya qabatay waxa ku soo maray Jaanis aan soo marin madaxweyne kale xilligii lagu jiray fowda
maxaad isleedahay waad khaladay, maxaad isleedahay waxay ahayd inaad ka faa'iidaysato oo markaasi aad ka faa'iidaysan weyse? wixii annagu aan ahayn iyo wixii dhacayba waxay ila tahay maanta ka hadalkooda iyo wixii naga horreeyey annagu waxa baan ahayn dawlad ku meel gaare dawladdii 21 sano jirtay iyo tii 9 sano jirtay iyo kuwii ka horreeyey waxay ila tahay waxaasoo dhan maanta waxaa duugay fidnada iyo dhibaatada iyo musiibada aan horey loo arag taariikhda ummadda Soomaaliyeed oo ku habsatay markii iyadaas aan ka lug baxno ayaa la qiimeyn doonaa oo culimadu inta maskax degan ku qiimayso ayay qiimeyn doontaa xorriyadda markii aan qaadanay ilaa maanta wixii xukunka soo qabtay dhinacyadii ay ku wanaagsanaayeen iyo dhinacyadii ay ku qaldanaayeen waxaan shaki ku jirin mas'uuliyad kasta ciddii qabata waxna waa qaldaysaa waxna waa saxaysaa cid aan qaldaminoon ilaahay ahaynuna ma jirto. adiga intii aad ku jirtay siyaasadda iyo xukunkii hore ee Siyaad Barre iyo xiliyadan dambaba maxay ahayd waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee ku soo maray inta aad ku jirtay siyaasadda Mudane Cabdiqaasim? wax badan oo yaab lahaana soo maray oo wax hal keliya ma ahane wax badan baa dhacaya markii madax la yahay waqti badanna dawlad lagu jiro dawladdaasuna ay hadba la kulmayso dhibaatooyin la kulmayso oo dagaal la kulantay oo waxyaalo badan ay la kulantay waxaase kolleyba ugu yaab badnaa waxaa weeye 20 sano oo yaa Soomaaliyahay intii iyadoo la lahaa Soomaaliya toosoo arrintu ay ahayd oo Soomaalinimo iyo mararka qaarkood xataa muxuu ahaay dhinaca bixi hantoodaga iyadoo lagu shaqaynayay haddana in qabyaalad loo shaarsiibto oo qabiil la isku laayo oo ummadii xamar laga barakiciyo oo qabiil looga barakiciyo oo waxaasoo dhan ay ku dhaqaaqaan niman qabqablayaal dagaala iyadoo 20 sano laga shaqaynayay ummadaanu inay dhinac isu raacdo waxyaalaha ugu dhibka badnaa ama ugu yaabka badnaa taas ayay noqonaysaa ummadda Soomaaliyeed soo maray waxyaalaha ugu wanaagsanaa ee muddadii dawladdaasi jirtay la qabtayna ummadda Soomaaliyeed way og tahay waxaan ka soo qaadan karaa afkayagii oo la qorayo maanta ardada Soomaaliyeed ilaa jaamacadaha ay ku baranayso iyo dhinac kasta siyaasadda dibadda tan gudaha tan tacliinta tan caafimaadka dariiqyada dekadaha meelaan wax laga qabano ma jirin 20 sano. Mudane Cabdiqaasim hadda dhibaato ba'an ayaa ka jirto dalkii maxaad isleedahay xalku waa ku jiraa maxaad rajaynaysaa mustaqbalka in ay Soomaaliya ku dambayso xaaladdeeda? anigu waxaan rajaynayaa ilaahay wuxuu yiri wala taqnatu min rahmatillah ilaahay rahmadiisa ka quusanina jeeda kale ilaahay wuxuu yiri markii asxaabtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay yiraahdeen mata nasrullah goorma nasriga ilaahay la helaya ilaahay wuxuu yiri nasriga ilaahay waa dhow yahay qariib weeyo waxaan rajaynayaa in nasriga helo oo Tigreega iyo ragga wataa ay sidii hadda u sii baabeen si ka badan u sii baabaan oo ka baxaan dalka waxaan rajaynayaa in dalku nabad noqdo waxaan rajaynayaa inta aan noolahay inaan arko dalkayga oo barwaaqo ah oo barwaaqada ku jirtoon hubo inay ku jirto oo macaadintu ka mid tahay oo batroolku ka mid yahay oo biyuhu ka mid yihiin oo meel walba barwaaqo iyo beer ah baabuurkayaga inaan ku wadano annagoo nabada oo ilmahayaga iyo ilmihii ay sii dhaleen gacanta ku dheggan ayaan rajaynayaa oo ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood u kala qaxday ay timaado oo meeshaas aan ka sheekayno niraahno 7 saasaa jirtay ayaan rajaynayaa insha Allah ilaahay hadduu idmana saasay noqon doontaa.